الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 38 بعد 100. waxaan maraynaa xadiiska 138 ayaynu maraynay. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وحكو سابسن yahay xadiiskani nabigu عليه الصلاة والسلام sida uu ciida u tukan jiray, yani khudbada iyo salaada si uu kala hormarin jiray. marka Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay radiyallahu عنهما سيئ أبيس برال الله كنقضيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام وحو سبينشي وحو أها إيا وأبو بكر إيا وعمر إيا عمر صدحوا ووحي أهايين يصلون العيدين صلاتها عيد لبدا عيدود وحي تكجرين قبل الخطبة خطبة كهر بي تكجرين، يعني صلاة إيا خطبة iyada iyo waxa kala duwan jumcada waa la khudbeeyaa kadib baa salaada la tukadaa, laakiin ciidaynka salaada la tukadaa kadib baa la khudbeeyaa. wayna kala xukun duwan yihiin khudbada ciida inaad dhageysato, khudbada jumcada in la dhageystaa waajib, gaar ahaan dadka salaada tukanaya ay waajibka masaajidka jooga. لكن خطبة عيدينك واجب معها إلا نجيسته، لكن وصلنا. الحديث 39 بعد 100. حديثك صدن هي السقالات، يعني بقول صدن هي السقالات. عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال وحير: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيام نأخذ بيي يوم الأضحى بعد الصلاة. مالنت عيد الأضحى وعيد الأكبر أيها النبي عليه الصلاة والسلام واخذ بيه فقال وحيه: من صلى صلاتنا قفكي صلاة يدتك كذا وصلاة أن تكنلتك كذا أما ديس وقت بيلك لبها كنت كذا صلاة أن وكلتك كذا ونسك جورع نسكنا جورع النوع كله وضحيدي بالشيء النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصاب النسك وأصيبي نسكي هذا وعلى ولا شيء هديك جورعي وضحيدي وأصيبي معناها سيد السنة ضايد والصح ضايد بأضحية استي. ومن روح النسك جورعه ونفك أضحية جورعه قبل الصلاة صلاة الظهر فلا نسك له وح جورع وسقناضي بتشيره. فقال أبو بردة وحجر بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله رسولك إلهي إني أنا نسكت وجورعي شاتي رديدا قبل الصلاة صلاة أنت عن جرين كهر أيام ردي أضحية سوى جورعي. وعرفت وحن أجادي أن اليوم مانتي يوم الأكل والشرب مالك وحل عنجرة وحل عابر جنين تاي. وأحببت وحن شعلاضي أن تكون شاتي في ديد إلى نغطه أول ما يذبح في بيتي شيء أوه ريا ولا جورع يقولي يقول جورع عين نغطه، يعني إن منك أوه ريا وعمل كادتك أوه مرة نغطه بان سمي بان يستدي. فذبحت شاتي سيدي وجورعي وتقديت قبل آتي الصلاة. أنا صو وحني ومعناها عن خذي صو قرني قبل آتي الصلاة صلاة إنها نعم. قال وحويري: شاتك شات لحم. نبي وحكي عليه الصلاة والسلام خدار وريه إنه واحد من أنا شريسي نفك عن إن هلب لقى عنا واحد شدائي عبادة يسقط على مرتين على الصين محاكو هذا wax sababa
oo reerka qalanaya ka baxsan shayga aan ku imaan waxaan leeyahay hebel neef bay shiraysteen yani waa iska soo qabsadeen waa qasheen marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ridaadu waa ri shiraysi ah waa neef aad iska qalatay cibaado iyo ajar waxaad ka helayso dee cunadaas ehelkaaga iyo carruurtaada iyo haweenkaaga aad ka farxisay waa sax laakiin shay aad cibaado caadiya ka helayso ma ahan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam shaatu laxmin weeye waa ri hilib awala dee shaatu laxmin lama rabine maxaa la rabay shaatu udxiyaa la rabay oo nabigu uu fadligeeda ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii udxiyada dee shuruudaheeda iyo la yimaada neefkas xubin kasta oo neefkaa ku taalla waxaa naarta looga xeraynayaa xubin isaga ku taalla yacni dhegta rida aad qashay dhegteeda waxaa lagu xoraynayaa dhegteeda isheeda ishaada afkeeda afkaaga yacni xubin kasta oo jirkaaga ka mid ah nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in cadaabta looga xoraynayo xubin kasta oo ridaas ku taalla xubin adiga kugu aadan baa lagaga xoraynaya cadaabta ka aad bay u fadli badanta laakiin fadligaa ma helayo qofkii neefka qala inta aan salaada la tukan qaala wuxuu yaa rasuul rasuulka ayow fa ina cindanaa canaaqan agtayada waxaa ah ceesaan yar ceesaan canaaq waxaa la yidhahdaa waxaraha yaryarka oo aan sanad dhammaysan ayaa la yidhahdaa kuwa qoorta dheerdheer oo yararka oo aan si fiicanna u weynaan waxartaasaanu haysanaa lana jadca hiya iyadu axabu ilaya waan ka jeclahay min shaatayni laba riyood afatajzi cannii marka ma iga gudaysaa ninkii ridii hore markii la ri hilib bay noqotay ninku rida ajar buu u gowracay marka ajarkii ma helaynin haddii la yidhi qorsho kaluu keeno wuxuu yidhi neef kale ma haysa ridaasaan xartaa yartaa ma iga gowracaysaa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam nacam haa way kaa gudaysaa walan tajziya can axadin bacdak qof adiga kaa dambeeyana mar dambe ka gudi mayso waxaa la yidhahdaa nusuusta qur-aanka iyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka ilaahay aayaddu waxaa laga yaabaa inay sabab ku soo degto xadiiskuna inuu sabab ku soo arooro laakiin waxay culimmadu dhahaan alcibratu bicumuumi lafd laa bikhusuusi sabab oo macnaheedu yahay aayaddan iyo xadiiskan lafdiga ay xambaarsan yihiin inuu lafdi caama yahay oo dadkao dhan quseeya iyo in kale unbaa la eegaya hadduu lafdigu caam yahay ummaddoo dhan baa xukunkaasi haystaa oo xukunkaasi u yaallaa oo amarkaa la siiyo haddii lafdigu uusan caam yahay laakiin ay jirto sabab caddaynaysa inaan dadkao dhan uusan naskaani khusayn markaa ciddii uu ku soo arooray baa khaas uu yeelaya marka waxay dhaheen cibrada iyo tixgelintu waa lafdiga caamnimadiisa ee qofkay ku soo aroortay ma aha dee qur-aankan in badanoo ka mid ah qur-aanku waa laba qaybood qayb dad ku soo degay oo sabab nusuul leh yani sabab waxay rabtaa ahaatee iyo qayb iska soo degay oo aan sabab nusuul loo og yahay lahayn marka haddii la yidhaahdo aayad walba qofkii ku soo degtay bay xukunkeedu saaran tahay dadka kale ma khusayso dee qur-aan fara badan oo hadda lagu dhaqmo laguma dhaqmeen asxaabigu ku soo degay unbay gaar ku ahaan lahay xadiiskan marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo daliishado ama laga fahmi karo in wixii khaas ah naska ayaa sheegaya nabigu hadda ninkan wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cid aan adiga ahayn ka gudi mayso cid aan adiga ahayn oo dambe laakiin adiga khaas wey arrintaada halkaas macnaha meelaha loo daliishaday ka mid tahay wixii caam ah haddii nusuusta kale ee nebiga ka soo aroortaa ay qof khaas ku tahay ama aysan saan lama dhexin marka waxaa leeyahay adiga gaar kugu tahay ama haddii uusan nebigu intaa ku dari lahayn eesaantaasi qof kasta way ka gudi lahayd
marka waxa adiga khaas kugu tahay nacam walan tajzi an ahad ba'dak haabu nabiga alayhi salatu wasalaam adiga way ka gudaysaa laakiin qof ka dambeeya ka gudimayso yani udxiya dambe ilaahay subhanahu wa ta'ala diintan wuxuu ku manaystay wanaag xikmadaha ilaahay waxa kamid ah ama waxyaalaha ummadani khaaska la tahay waxa kamid ah horta ciideen waxay ku aadan yihiin amal waaweyn aanu sameeyno ramadaan baynu soo soonnay 30 bari waxaynu ku khatimaynaa farxad iyo ciidina adkaar baa la akhrinaya wataan soo marnay Allahu akbar shahadu la ilaha illa Allah yani adkaar baa la akhrinaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saliga nabiga la qaadaya ilaahay baa la amaanaya يعني عبادة وناكسن الله نمد وحنكو خطبينا وإلهي الشرع كدغاي wax wanaagsan halka umadaha kale marka ay ciidayaan adduunka la qarabo oo khamra la cabayo oo xumaan la sameeynayo oo la istilayo oo arlada la baabiinayo oo yani ay noqonayso fusqi loo baxay marka ay ku tusaysaa shaygan shay hadi alla ka yimid inuu yahay oo ka duwan waxa bilaadanku ay haystaan dhanka kale xikmadaha waaweyn waxa kamid ah hadda labada maalmood ciida udxiyada iyo ciidul fitriga midna waxa la yahay la soo kalo midna waxa la yiri yani hala soo kalo waxba yaa la soo cuni midna waxa la yiri waxa la ciidul fitriga waxa la yiri qofku xasoo cuno oo tigir buu nabiga kaleey salaatu wasalaam soo cuni jiray marka kadib uu imaan jiray xikmad waxa kaloo la yiri oo aan u socday ciidul fitriga waxa la bixiyaa yani zakatul fitri zakatul fitri waxa sharci ah inta aan ciida salaada la soo aadin in la baxsho neefka udxiyadana waxa sharci ah markii salaada laga soo baxo in la bixiyo in la qado marka labadooda hadda طبعا حكمت إلهي كلياي أما رسولك عليه الصلاة والسلام ويبضنتها لكن waxaan fahmaynaa laba arrin mid waxa weeye dadka masaakiinta ah waxa la rabaa maalinka inay farxaan waliba xataa lacag in loo bixiyo lama ogola waa in raashin loo baxshaa qofkan marka maskiinka ee saaka dawarsan lahaa ama suuqa soo wareegi lahaa waxa la rabaa asagoo niyad degan oo gurigii wax u yaalaan inuu salaada in la tukado yimaado soo faraxsan oo gurigiisii masaakay tabiilkii reerka cuntadii loo dhigay dhanka kale haweenku ciidul adxaaga haweenku waa dad mujtamac ka mid yihiin inay cibaadaystaan oo salaada jamaacada la yimaadaan baa la rabaa ay nala tukadaan ciidii waxyaalaha marka la fahmi karo waxa kamid ah hadii haweentii neef la qalo oo neefkii la gowraco inta salaada la aadin dee neefkii ku mashquulaysaa inay qasho iyo shiisho oo ka shaqayso oo ciidba soo aadi mayso marka si aysan uga mashquulinba iyaga waxa la yiri neefka ayaa la qali neefka markii salaada laga yimaado ha la qalo dabcan xikmado badan baa ku jiri kara laakiin waxyaalaha aan fahmi karno way kamid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadan diinta waa lagu tashjiiciyaa wanaaga xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxa kamid ah oo laga yaani macnayaasha laga fahmayo xadiiska waxa kamid ah salaada khudbada in salaada ciida laga hormarinayo khudbada salaada in la hormarinayo waxa kamid ah qofkii salaada kahor salaada tukada ka bacdina neefka gowraca qofkaasi inuu sunnadii nabiga waafaqay kaleey salaatu wasalaam waxa kale kamid ah salaada in la soo xaadiro inay kamid tahay calaamadaha ku tusay qofka in la aqbalo in la aqbalay yani maqbuul yahay amalkiisu
waxaa ka mid ah maalinta ciidu maalin farxad iyo surur inay tahay waayo nabigu cunno iyo cabitaan maxaa dhacay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi maanta waxaan ogaaday maalin yowmu akli washurb inay tahay nabigu ma mucaaradin ma ahan ma dhihin kaliya wuu saxay waxay kaloo kutusaysaa hadiga iyo udxiyadu inay yihiin wax shuruudo leh haddii aan shuruudahaas la oofinna aysan fulaynin aysan ansaxaynin oo adigu hawaaka neefka adiga kula manaada inaadan wax ku qalayne neef muwaasafaad leh inaad qalayso waxay kutusaysaa oo kale qofku hadduu ijtihaado oo uusan cilmi ku dhisnay ijtihaadkiisu inuusan faa'iido keenin oo macnaha niyad wanaaggaaga inaad wax wanaag hadda ninkaan niyad wanaagsan buu la yimid wuxuu rabay inuu camalka qofka ugu fiican noqdo marka la imaanshaha shayga iyo niyad wanaaggu iyo niyad wanaaggu kuma filla walidaalika cibaadada saddex shardi bay leedahay shardiga koowaad waxa weeye qofku inuu niyad wanaagsan la yimaado shardiga labaad waxa weeye qofku inuu cibaadadii laftigeedii uu la yimaado shardiga saddexaad waxa weeye inuu sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ula yimid inuu qofku ula yimaado lidaalika anigu waa niyad fiicnahay shaygaana waa la yimid laakiin xagga sunnada waan khilaafsanahay waxba ma taraysa markaa hadda ninka ka niyad fiican buu la yimid camalkii la iska dalbay buu yimid kaliya wuxuu khalday tawqiidkii waqtigii buu khalday waqtigii la yidhi hala gowraco waqti ka horeeyuu la yimid walidaalika ma ansaxin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka diiday ilaa uu neef kala qaday marka hadday cibaado tahay qofka cibaadada markaad la imaanaysid sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ula yimid si waafaqsan baa lagaa rabaa waa inaad itibaaca hadiyu nabiy sal alla alay wasalam ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayaqfir lakum dunuubakum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi haddaad ilaahay jeceshihiin waxaad ku tidhahdaa dadka aniga isoo raaca aniga markaa isoo raacdaanna ilahay wuu idin jeclaanayaa wuuna idin dabdhaafayaa marka sideeda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyiga nebiga iyo cibaadada suu u samayn jiray iyo wixii shardiga oo ay diintu ku xirtay waa in lala yimaado haddii kale cibaadadaas waxba ma tarayso الحديث الأربعون بعد المئة حديثك حديثك بغولي أفرتنات عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال وعيد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام ما انت اللي يرى هذا يوم النحر أيوتك كذي يوم النحر وحل يرى هذا ما أنت وكلا مركا عرفنا تاجنا بري وكلا حاجة ترادنا وما أنت بشو أي طبعا كتاهي وأنا ما أنت عيد أضحى أو عيدنا إنه هالك مركا دلك تشو أنا حرم كتشوجين أي عيد تكنه دتك حرم كتشو على طول عيد وقته كذا يعني وما أنت أي ضوافك إيه سعيك إيه الله إيمانه يعني شغال وقبضا قفك حاجة أي طالع يوم الحج الأكبر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من تجيبه ثم كدمنا خطبه وخذ به ثم كدمنا ذبح النبي وقرع وقال وحي من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله أريك وحكاها الله يا قفك حاجة maalintaas afar camal baa u taala kow waxa u taala ramyul jamaraat labo waxa u taala hadiya inuu gowraco saddex waxa u taala timaha inuu xirto afar waxa u taala dawaafka marka say u kala horeeyaan waxa weeye waa ramyul jamaraadka kadibna neefka in la gowraco kadibna in la dawaafo kadibna intimaha la xirto ama la gaafsado marka afartood saasay isu daba socdaan laakiin
يعني ولا كل هرب من كراه وواحد شرح حديث فلا حرج إن بان النبي ما يقول عليه الصلاة والسلام إنتان دوافين بان قورعي inta waan dawaafay intaan gowracin marka waxa soo dhan waa istoomarintaas mushkilad ma laha hadda halka marka arintaas ku hadlayna wuxuu yiri thumma khadaba nabi waa khudbeeyay thumma dabaha markuu khudbeeyay buu wax gowracay waqala wuxuu yiri ma dabaha qabla an yusalla waxa laga hadlayaa hadda waa ciidul adxaagi waa salaadii ciida nabigu salaadii ciidu tusjiyay waxa arabka ku tukay من ذبح قفكي قورعه قبل أن يصلي أنت ستكن فليذبح هقورعه أخرى متكلم مكانها ومن لم يذبح قفكي أن قورعه ولي فليذبح بسم الله هذا هقورعه مقع إلهي هكو قورعه هذا كان لكم حكفها مساء أضحيض وقت قالوا هي بعد الصلاة الحديث 41 بعد المئة حديث كان بغلا فتن يكون عن جابر رضي الله عنه قال وحيري شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد نبي أيام صلاة لتكن مالنت عيد مركو قال يا فبدأ قال يقاب عبادة السنين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة هرت الصلاة دي بتكري انتو سخطبين بلا آذان ولا إقامة صلاة سلا آذان الآن إقامة الآن أي صلاة دي تكري ثم قام كبعد واقعي متوكئا أسوى كتيرسا على بلال أسوى كتيرسا يعني بلال أسكني فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله إلهي عبسي السؤال وحث ضدك وحكم بورية على طاعته إلهي إلا أضيعه ووعد الناس ضدك وواني وذكرهم إلهي وحسوسيه ثم كذبنا مضى وصعدي حتى أتى النساء إلى هويك ويمين فوعظهن هويك وواني يغنى وذكرهن إلهي وحسوسيه فقال وحكي النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء هوينكم تصدقنا وحصدقيستا فإن كنا إذنكم أكثر حاضر جهنم حاضر جهنم لغشقه إذنك أقول بضل فقامت وحا استاكت امرأة هوين من سطة النساء هوين كان لحظة والغو فسري وحكوا الغو فسري داء هارين الحدحات هاي صفعاء الخدين نبن من مدو هارها وجهها دمرك كغيالا فقالت وحيت لما يا رسول الله رسول كلاه الصواب محا انغا نارتا نغو بديي فقال وحي لان كنا محا يريدنكم تكثرنا شكا يعني شكا شيغشدا اياد شيغدك waa badisaan وتكفرنا العشيره ننكر وحي وناغا ودين galay waad kartaan قال وحي فجعلنا وحي بلاغين يتصدقنا إني صدقيسانيان من حليهن ذهب كودي iyo dharka wixii ay labisnaayeen inay koolihi iyo dhagadhagihi iyo faraantiyadii oo yulqiina ay tuurayaan fi thawb bilal oo nabiga la socday calayhi salaatu wasalaam mara uu fidiyay ay ku tuurayeen من أغرضتهن دغدغهودي iyo وخواتيمهن iyo fargashayaashoodii bay marka soo daadiyeen meesha marka waxaan ka qaadanaynaa koow khudbada ragga iyo dumarka in yani loo khudbayn karo dumarka gaar loo tujin karo ama loo tukan karo muxaadaraadkan hadda dumarka gaarka loogu jeediyo masaajidiyada iyo meelaha la keeno inaysan bidca ahayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay inuu dumarka intuu gaar u laamo maxaa dhacay dumarku axwaalo badan oo gaar ay leeyihiin oo aysan ragga dhexdiisa ku sheegan karin marka ay tahay inay gaar loo qiimeeyo oo gaar wax looga dhagaysto ama gaar wax loogu sheego
sidoo kale xadiiska wuxuu daliil u yahay haweentu maalkeeda in iyadu mulkido hadday nin leedahay oo ay xoolaha haysato sababta hadda gabdhahaani nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu wax weydiiyey dahabkoodii iyo faraatiyadoodii buu soo tuuray dahabkoodii iyo faraatiyadooda rag baa u gaday raggiina waxba lama soo weydiin ila maba ay ogeyn in maanta wax la weydiin doonee sida laaligeeda haweentu maalkeeda inay iyadu leedaho sadaqaysan karto ayuu xadiisku daliil u yahay wuxuu kaloo xadiisku uu daliil u yahay in khudbadu ay ka dambaynayso salaada tukashadeeda wuxuu kaloo daliil u yahay in sadaqada naarta looga badbaado maxaa dhahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cilladda uu ku yidhi war sadaqada badiya waxaa weeye khaladaadka noocaasaa ku jirta wuxuu xadiisku daliil u yahay inaan qofta dumarka hadalkeedu usa cawro ahayn maxaa dhahay waa tanoo gabar baa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam wax weydiinaysa oo la doodayso waxay leedahay maxaa anagu naarta ugu badanna waxa kaloo muhiima oo nabigu u sheegay arrinkan dumarku khasladkan dumarka dhaqanka u ah inay iska ilaaliyaan si ay oo odayaashan wax laga sheegaya iyo xantaan iyo buuqaan iyo eedsheegkan faraha badan dee inuu yahay wax naar lagu gelayo marka inay iska ilaaliyaan buu nabigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta waxaad ugu badateen waadna shakwo iyo eedsheegad badan tihiin xadiis kale wuxuu leeyahay walacaladaad badisaan waaadka saasay leedahay lacaladaad badisaan ninkiina wuxuu idiin tarana waa inkirtaan oo hadduu si kasta u fiican yahay xoogaa haddii wax yar dhacaan dumarku waa xabaasad badan yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala caatifadda dumarka carruurta yararka ah inagu ma hayn karno oo ilmuhu caadifadba u baahan yahay wax ka naxa marka iyaga caadifaddaa ku badan raggana waxyaalaha fakarka iyo go'aamada adag sida loo qaata iyo wax kala miisaanka iyo maskaxdooda saasaa ku badan marka dumarku maadaama ay caadifad badan yihiin hadday xoogaa wax yar tabato iska sheeganaysaa kuwa kale u sheegaysaa marka arrinkaasi inaysan hadda wax gabdhaha gaar ku ahayna oo xilligaa saxaabiyaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dhici jirtay dhanka kale in la fahmo oo haddii hadday wadaadii wax sheegsheegaysaa aragtid inaadan moodin adiga in ilaahay balo hoosta kuu geliye inay xataa haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax sheegan jireen iyada inaad fahantid baa la rabaa oo waxaana uu dabci haweenku leeyahay uu yahay الحديث الثاني والأربعون بعد المئة عن أم عطية وعلى وري نصيبة الأنسارية رضي الله عنها قالت وحيتر أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم نبقى أيام الأمرين أن نخرج في العيدين عيدها إن صار العواتق قبلها يرير يعني كان قاري وذوات الخدور iyo kuwa mukhabiyaadka ah oo guryaha ku jira waan ka soo bixin wa amara al-huyada gabdhaha xaydkana wuxuu amray xaydka qaba an ya'tazilna musalla al-muslimin meesha lagu tukanayo kaliya inay ka fogaadaan maxaa laga wadaa maalinta ciidda waxaa rabaa gabadha xaydka qabta iyo midda aan qabin iyo midda yar iyo kuwa mukhabiyaadka ah guriga aan ka soo bixi jirin kulli waa la soo saaraya oo maxaa loo soo saarayaa khayrkaas meesha ka dhacayso ummadaas takbiirtaas iyo ammaanta ilaahay la ammaanayo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam khayrkaas iyo ummadda isu imaanayso ilaahay baryaysa inay khayrka xaadiraan oo ay barakadaas ka faa'iidaystaan dhanka kalena way ka fogaanayaan meesha lagu tukanayo oo markaas meesha lagu tukanayo salaadii ka qayb qaadanayaan way ka socmayaan marka ay salaada la galayo marka inagana saas la ka rabaa عن أم عطية وعلى يوري نصيبة الأنسارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيام أمرين أن نخرج في العيدين العواتق مالمها عيدة إلى أن عواتق الله الله قبلها وحلي هذا أن يرضى ولي أن كان قاري أيالي هذا قريضة
ما أدري في الصومالي فولي بيا لو رجلي فولي وكوا يرك أو ملنا كوا حقا عن ولي قان قارن لكن سوكر لبي صدق يطول أفر يطول مراس أيام الشيء ودوات الخضور يكوا قلالك كحرم ومعناها مخبياتها أو قبلها عن صبحين وأمره أمر النبي على الحية قبلها حيث قضاء أن يعتزلن إلى كفوا قادان مصلى المسلمين مسلمين تماشى أي كنت كريان إلى كفوا قادان بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عليه كنا نؤمر وحنا أمر تشريبيتر قبل ناس أن يخرج يوم العيد ما لنت عيد أن نخرج إلى نبحان يوم العيد ما لنت عيد حتى نخرج إلى أن صوصر البكرة من خدرها قبل البكرة يقولك مخبيات كوي صبحين وحتى نخرج الحيض كوي حيث قبلنا صوصر وفيكون خلف الناس ذاتك قداش سعي هذا فيكبرنا الله أكبر طائدهم بتكبيرهم مركز ذاتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لإله يوم إن دعاء ويدعون بدعائهم دعاء ذاتك مركز للدعائي النبي بالدعائي عليه الصلاة والسلام إن للدعاء استاذتك يرجون بركة ذلك اليوم ما ننتاز بركديسة إيا وظهرته إيا ما نكاس دنبيada la iska dhaafayo oo la iska daahirinayo labada arimood ay ugu liibaan maalinka barakadeeda iyo dambi dhaafka maalinkaas dhacaya inay ka faa'iideystaan ayaa la rabaa xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxa ku kamid ah بعض العلماء وحيلين صلاة العيد وواجب الروعة عليهم وواجب على الكفاية marka in لازم tahay qofka dumarka rag iyo dumarba in ciida la tago waxa kale oo waajib ah meesha lagu tukanayo salaada oo haday masjidka gudihiisa haday musallataana musalla waa weynaan kara oo de qayb weyn buu noqon kara meel ay gaar u socmaan laakiin meesha marka salaada lagu tukanayo inaysan soo galeen waxa kale xadiiska laga fahmayaa musallaha ciida lagu tukada inuu xagga xukunka la mid yahay masaajidka maxaa dhacay masaajidka dumarka looma ogola waxaa loo ogol yahay inay marto inay dhex marto oo kale laakiin ka badan ma dhex geli karto masaajid ma fariisan karto والمقص في المساجد بعد عيالها منهج كا هو المركز حاجة قبته ولا جاي بعض العلماء إن نهان هدي إن قبله لهذا ألعاب عصرية على هذا يوم قبله وحكي السودانيين مركز ده الدرس يوحكي جحريين إنه يسافر يسافر هذا يسمى لقب بقينين إنه يحكوا عن السماش قفت الدمر كا حياتك قبطها حلاقة قادرية حديثك إنه دعاء يسنكرته والدعاء اللفتي كده وحا كتشرته يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وآيات قرآن قبل دي حياتك قبطها ما آخرين كرتها مثل ما آخرين كرتها وآخرين كرتها أصل قفك عن ظاهر كاهين أما قويسك كو واجبي أما ويسادك كو واجبتي قرآن كلفتي كده دعاء أذكارهان وأخصانيه أو دعاء سنة وكنت عايسني وكنت عايسن كرا marka gabadha xaydka qabta meelaha marka laga qaato xukunkaas ay kamid tahay halka kan halkan waxaan ka galeynaa takbiirta ciidanka takbiirtu waa Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd sidaan aynu qaadno waxyaalaha fara badan oo aan ku dardarno طبعا ما أدري لبضنا باب صلاة الكسوف مركا صلاة العيدين كتكبيرته يدو دي وصومرنا يوم منا وحا لقادا إلى أي صلاة اللي قارح إلى قرحة أي كدعضة إلى مركز صلاة اللي تكدا يقعدها منا صدح مع الماضي يصدح حمين ما أنت عيدة لقبل عمي يصدح كلام يصدح حمين بيسعطها الحديث الثالث والأربعون بعد المئة عن عائشة باب كم حكم بابيها باب الصلاة الكسوف
salaada dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka isku sibaa loo tukadaa marka salaadahaas wixii ku soo arooray oo sheekhu uu qoray baynu fiirinaynaa عن عائشة وحلقوري رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرحت أيام مدوبات حلق النبي عليه الصلاة والسلام فبعث مناديا نبي وحو صاد قف قيليه وضدك عد قارسيه وينادي نادينيا الصلاة جماعة وصبح صلاة سي جماعة فاجتمعوا ويصوروا وتقدم نبي وهرمري فكبر الله أكبر بي صلاة وحرته وصلى نبي وحو كذي 4 ركعات 4 ركعات يعني 4 حتى ركعات لو بجيده 4 ركوعات وفي ركعتين 2 ركعات و4 سجدات iyo 4 sujuudood marka salaadan khusuufka iyo kusuufka dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka dhowr sifo soo aroortay oo kali ka mid yahay way ka qaab duwan tahay salaadaha kale oo tusaale ahaan sida caadiga salaada halkii ragcad waxaynu naqaanaa inay leedahay hal rukuuc iyo 2 sujuudood laakiin sida xadiiska aad u jeedaan salaadan waxay leedahay 2 rukuucood iyo 2 sujuudood halkeeda ragcad marka rukuucii iyo sujuudihii way isla yihiin oo see la sameynaya salaada waa la xiranaya waxaa la akhrinayaa faatixadii markii la akhriyo suuradii baa la akhrinaya waa la dheeraynaya quraanka aad baa loo dheeraynaya sababta waxaa la rabaa in laga baxo salaada in salaad lagu jiro inta dayax madoobaadka ama qorax madoobaadku jiro aad baa loo dheeraynaya markii suuradda la akhriyo baa la rukuucaya markii la rukuuco meeshii laga sujuudi lahaa baa qiraa'o cusub loo istaagaya oo suuraddii ama suurad kale la soo qabsanaya quraanka halkaa laga sii wadaya markii asagana waa la dheeraynaya rukuucda laftigeeda waa la dheeraynaya mudda la rukuucsanaanaya kadibna waa la rukuucin markaa dambe ayaa la sujuudaya sujuudaha iyo rukuucaha iyo qiraa'aadka kulli waa la dheeraynaya maxaa dhacay waxaa ku jira ahdaaf waaweyn oo ah inta ay salaada ay mushkiladaasi jirto ila tukada la wado waxyaalaha xikmadaha dunyawiga oo ku jira waxaa ka mid ah sidaad ogtihiin dhakhaatiirtu waxay sugeen qorax madoobaadka haddii qofkii fiirshay indhuhu inay ka dhacaan walidaalika ninka la yidhaahdo doctor cabdicasiis xafidahullah youtube ku jira kilibyada uu ka duubay iyo idaacadahan uu ka sii daaya mar walba uu ka hadla wuu tawjiihiyaa dadka waayada tasaynu ognahay waa la sii sheegaa waxaa la yidhahdaa maalihebro dayax madoobaad iyo qorax madoobaad baa dhacay waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay isweydiiyaan wax aan berri waxa dhici doona dee gaaladu waxay sheegaysaa oo wax gaala sheegtay oo dayntii ay ka hor imaanaysaa qaybkii bay ka hor dhacayaan marka qaybka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood qayb nisbi ah iyo qayb mutlaq ah مثلا علم الساعة قيامة قرط دعيسو وقيب مطلقة إلهي سبحانه وتعالى مو يعد أمجه وح مخلوق أوغل ما أركو غيب كاسي وغيب قرط أرد من دوتو نفتو كان دعيسو وغيب خاطر تحبا إسكا الشيء حيغ غياسان مركا غيب كنوع عاسا غيب وحل غيب مطلق يعني ووح عن إلهي مو يعد كان أركي كريم waxaa jira wax la yiraahdo qayb nisbi hada ma asar adduunka hada waxa la maraya maanta waa ogtiin wax cusub ma dadku waa wada yaqaanaa gabadha uur kale tii qalab baa la saaraya dhakhtarku wuxuu leeyahay wiil bay sidaa ama mataanay sidaa ama gabar bay sidaa mararna way ka khadlataa hada waxay ku xiran tahay qalabka isticmaalaya mar hada waxa la marayaa in la garto ilmaha caloosha ku jira inuu gaajo haysiyo in kale
oo maraha wadamada qaarkood sida Malaysia iyo wadamada dee xoogaa aqoontooda badan tahay ord wax abal dhahay gabdhaha ilmaha gaaja hayse marka haddana dee qaybku ka mid ah qof dumar caloosheeda wax ku jira waxyaalo aad jeertay wax ku jirtay marka maxaa laga wadaa tana ka mid ah waxa laga wadaa yani yay qayb ka tahay anaga mujarrad isheena qayb ay naga tahay ma arki karno laakiin qofkii takhasuskeeda leh dee qayb ma aha inaga hadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam agteedna qayb buu ka yahay maynaan aragnayno aragnay waxa qayb waxa la yahay wixii maqan oo aan la arki karin oo aan ku suurtoobayna aragtid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maynaan arag alladina yu'minuuna bilghayb marka la akhriyo inaga waa inoogu jirtaa laakiin asxaabtii qaybku ma ahayn nabigu wuu la noolaa calayhi salaatu wasalaam marka waxaa jira qaybka nisbiga waxaa laga wadaa waa qayb dadka qaarna ay arki ka wax ka ogaan karaan dadka cilmigeeda iyo takhasuskeeda leh arrinkan marka qorraxda baan u socday qorraxda iyo dayaxmadoobaadku waxay ka mid yihiin qaybka nisbiga ah oo dadka aqoonta u leh oo qalabka u haystaa way ogaan karaan qorraxdu bari inay madoobaanayso in kale way qiyaasi karaan wayna ka khaldantaa mararka qaarkood wayna u saxantaa inta badan maxay wax ku qiimeynayaan waxaa laga yaabaa dadka dee cilmigan falagay barteen dayaxa iyo qorraxda iyo nisbada calaaqada ka dhaxaysa iyo waxyaalaha noocaas waxaad arkaysaa hadda berri waxaa lagu oranayaa maalan magaalada boosaaso roobaa ka daaya ama dabaylaha ku aadan marar badan been bay noqotaa marna run bay noqotaa dadka marka waa dad physics ka garanaya waxay arkayaan dabay badda ka soo kacday ama meel fog ka soo kacday waxay qiyaasayaan xawaaraha ay ku socoto waxay ogyihiin kilomitirka ay boosaaso ku aadan tahay itijaaha ay u socoto waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo hadday masalan ay dabayshaani halkii saac ay goynayso 100 kilomitr yacni halkii saac meel 24,000 oo kilomitr jirta goormay tegaysaa waxaan oran karnaa hamayn dambe hadda bay boosaaso ku soo aadanta maxaa waxaan naqaanaa xawaaraha ku socoto iyo meesha itijaahay u jeedo iyo magaalada boosaaso intay meesha ay ka dhaqaaqday u jirto waxaa marka waa xisaab wax weyn maaha waa midda diyaaradaha lagu wado oo adduunka lagu maamulayo ka qayb ma ahan in la sii sheego ee qofkii aqoonteeda leh inuu sii sheego qorraxda goortay madoobaanaysa iyo dayaxu goortay madoobaanaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan marka haddaan u soo noqono iyo salaada kusuufka sida loo tukado waxaa soo aroortay 2 ragcadood oo min 2 rukuucood leh waxaa soo aroortay 2 ragcadood oo min 4 rukuucood leh macnaa 3 rukuucood leh midiiba 3 rukuuc leedahay waxaa soo arooray xadiiska ku soo arooray 2 ragcadood oo midiiba 4 rukuucood leedahay ilaa 5 baa la gaaray culimadu marka waxay dhaheen kulli waa jaais ya ragcad maxaa la sameeyaa ragcad baa la gelayaa salaad baa la gelayaa quraanka baa la akhriyaa waa la rukuucaya markaan ku leeyahay 3 rukuucood baa leedahay waa sidee markii la rukuuco waa laga soo noqonaya haddana quraanka waa la sii akhrin markii intii uu rabay qaarigu uu akhriyo waa haddana rukuuce weli lama sujuudin mar saddexaad baa haddana noqon ilaa 3 jeer marka طبعا أحواشا iyo ma laga yaabaa inay kala duwan tahay marka ala kullin si kasta oo ahaatee kulli sunnada waa ku soo aroortay laakiin xadiiskan baa ugu caansan الحديث الرابع والأربعون بعد المئة عن ابي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدوي رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ألقى كنا الحديث كان wuxuu ka hadlayaa arrin caqiida ah oo waa maxay waxyaalahan ka socda koonka cirka sida aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala laba loo qaybiyaa aayaad kawniya oo waa maxay waa aayaadka dee qorraxda iyo dabaylaha iyo roobabka iyo waxyaalahaas muuqda iyo aayaadka tanziiliga ee waxyiga soo degaya
waxyaalaha oo dhan oo dhulka iyo cirka iyo roobabka iyo waxa aynu aragno iyo isbedelka dhirta waxa soo dhan waxa la yiraahdaa aayad kawniyo ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa yani kawni waxa laga wadaa ilaahay subhanahu wa ta'ala baa amar bixiya kun budaa markaas ay saa ku noqdaan inay khilaafaan ma dhici karto sida ilaahay ugu talagalay inay khilaafaan ma dhici karto waxa jirta aayadka tansiiliga oo awaamirta la siinayo waa ama awaamir ku xiran ikhtiyaarkeena iyo inaga rabitaankeena iyo ficilkeena way dhici kartaa marka sida ilaahay ku amray si aan inaan samayso ilaahay subhanahu wa ta'ala usraali ka ahay laakiin si aqdari marka waxa jira dad aayadkaas kawniga ku fasiraya inay asbaabo kala ku yimaadeen oo bini'aadamku dowr ku leeyahay oo hadda xadiiskan soo socda waxa dhacday xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam qoraxdii madoobaatay isla maalintii uu wiilkii nabiga maxamed kaleey salaatu wasalaam wiilkiisii ibraahim u dhintay marka suuqii waxa la galiyay maanta qoraxda wiilkaasi u madoobaatay wiilka darti bay u madoobaatay marka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu saxaya walidaalika waxyaalaha aqaaidka ah lama daayo in bulshada ishaacaadka lama ogolaado in bulshada iska dhex qaadaan ma dhaay wixii dad baa run moodaya waa lagu kadsoomaya wax badan baa dhacay xadiiskan ma sheegay laakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu ku sheegay wuxuu leeyahay maantay dadka taas roob ay iyadu ahay waa tan oo kale xadiiskan ma laakiin tani waxa ku saabsanayd qorax madoobaadka isla xadiis kale oo ku saabsanaa roobka iyadoo abaar la jooga roobda dadkii marka qaar baa waxay bilaabeen xidigii hebelaha wallahi xidigii beel ma sheegin waa ogaa markuu dirku uu la fariisto dayax ama markuu afagaalka la fariisto inuu roobda iyo awal baa sheeg dadkii saas waxaasay daldaleen marka nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam saaka waxa bariistay kuwa ilaahay ku kufriyay iyo kuwa ilaahay rumeeyay marka yaa rasuulullaahi maxay yihiin baa leeyahay kuwa wuxuu yiri markii xalal roobkii daay ilaahay u tiiriyay oo yiri ilaahay baa roobkan noo diiyay dadkaas ilaahay rumeeyeen ajar ma heleen kuwa yiri xidigii hebelaha baa sabab u ah iyo dayaxo xidigada la fariistay iyo afagaalada iyo waxyaalahaas iyo ururka iyo waxa u tiiriyay kuwaasina ilaahay ku kufriyeen walidaalika halkaas waxa laga qaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala sunca uu leeyahay ama wax isagu abuuray ama wax isagu uu qabto haddii aad u tiiriso cid aan isaga ahayn oo makhluuqaada inuu yahay ilhaad oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ficilkiisa oo shirki yahay oo aan loo galay xadiiskan عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله رسولك لا وحير صلى الله عليه وسلم إن الشمس قرحضة إيه والقمر ضيح آيتان آيات وي من آيات الله إلهي آيات كيسا كاملة مرك هورتا إن آيات لغو مقعابك حديثك كفاميسا يخوف الله بهما عباده إلهي وحكوبة شيئا وكعب سجريا الدوميديسا سيعيوصوا النغضان ويحمانتوا وقصوا النغضان وإنهما إيو لا ينكسفان وممدوا بادان لموت أحد القفل بشري أو من الناس الذكرة ولا لحياته نرشي سنة وممدوا بادان فإذا رأيتم هتدركتان منها أيضا شيئا شيء كملا طيحي بمدوباني أما قرحة يوم مدوباتي فصلوا تكذا وادعوا الله إلهي بريا حتى يكشف ما بكم إلى أي إذن كفى إذن تو قرح مدوباتك إيوه ضيح مدوباتكم halkaas marka waxay ku tusaysaa aqeeda ahaan aayaadka kowniga ah ilaahay subhanahu wa ta'ala mooy cid kale ila loo tirin karin الحديث 45 بعد المئة عن عائشة وحلواني رضي الله عنها قالت وحيتري خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرحدي أيام مدوباتي حلق رسولك فقام رسول الله رسولك لا يستعجل فصلى بالناس دتك أيوتشي فأضال القيامة يعني استاج أيو ديري ثم ركع كبعد الركوع فأضال الركوع ركوع دي لو ديري ركوع الأول ثم كدم سجد واسجد الركوع ثم قام وحي استاجي يدبان واسطري فأطال القيام كيبو ديري
ثم ركع كبعد النبي وركع عليه الصلاة والسلام فأطال الركوع ركوع دي بوليري ثم قام واستاغي قيام كي ركوع ده كدم بيه اعتدال فأطال القيامة استاغي بوليري يعني ترى دمها اعتدالك وقيام عصب وقرآن الأخرية وهو دون القيام الأول ركوع ده هو ركوع عن هاي يعني قيام كي هو قيام عن هاي ثم كبعدنا ركع والركوع سو جديد لبا قيام يا لبا ركوعات بسبب النبي عليه الصلاة والسلام ولنا ما سجود لما قارن ثم فعل في ركعة الأخرى مركز ثم سجد وسجودي فأطال السجود السجود له ديري سجود يده كان معروف ودي والله ما تشهر لكن maxaa ina ku cusub rukuucdii oo laba laga dhigay ثم فعل في ركعة الأخرى ركعتي كلا وحسمي مثل ما فعل في ركعة الأولى ركعتي هو وحسمي ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وكبح الصلاة وحال قد تجلت الشمس إلى يدو قرح دي أي فيدنتي ومدوباتك كبعي فحمد الله إلهي وأماني إلهي بكحمدي وأثنى عليه إلهي نواء أماني ثم قال وحيري إن الشمس والقمر ضيح أيوه قرحه آيتان من آيات الله إلهي آيات كسواوين بكمدين أو إلهي إسكالي هاي لا ينخسفان وممد وبادان لموت أحد وقفنا لشي ولا لحياته لبشر استقطانا فإذا رأيتم ذلك هذا ذلك أركتان فادعوا الله إلهي بريا وكبروا الله أكبر لهايا وسلوا كذا وتصدقوا وحسن غيستا أفرتها اسكندر ثم قال وحيري يا أمة محمد ومد النبي محمد والله بأن كل دارتي ما من أحد مجرى أدون أغير من الله أدون إلهي كقيرا بدل مجره من أتى يزني عبده قف من أن إلهي سبحانه وتعالى ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته روح إلهي سبحانه وتعالى كقيرا بدل وحمان شاء الله وكحمانيو أو كعرانيو إن ننكو السنيستو أدون تيسا إلهي وأبوري وكسنيستو أما أدون إلهي وأبوري أي سنيستو مجره يعني إلهي سبحانه وتعالى أدبو بعرضا وحيالا أوقات كون عبيها السنة كاملة وأنا وحو سنة ومضى بابينيس هذا حول كلام اللي قلت يا أمة محمد أمة محمد والله إلهي ما كل أرتي لو تعلمون هداد وقال لهيدين ما أعلم وحان أوقعي ومعنى قيامها سوية وهولة وحسابة ومحان كل هذا يعني مساءلة وح ذكورية هي أهوال القيامة هي دبت ما أنت قيامة شرتها هي سيد حالات أسبوع دري دونتو هي واحد ذاتك السوية هدان ليش هداد وقال لهيدين ما علمت لو أعلم هذا لو تعلمون هذا وأن لهيدين ما أعلم وحن أوجهي لضحكتم وقصر لهيدين قليلا هير ولا بكيتم وأوي لهيدين كثيرا إن فربضا يعني واحد كنت سيسا واحد فربضا قفك موقتهي أو وحبا أوجي دي ما بنا حيوة وحبا ما أوجه كان النبي عليه الصلاة والسلام قفلة عن كتشرنو وحين السجية حتى هدي له كتشرنيوه حتى هدي الله سبحانه وتعالى كوضا من نافه ده مر والبا استاجا يوم القيامة هو استاجا إلهي سبحانه وتعالى سؤالها اللي هو الدينية منكرك يا نكيرك يعني وحكاه الريا وحيانا أدو أدقوي وكوها بون إلا وترقله يا ما هذا عي قدمت لحياتي يعني وان انت هذا أورن يعني إله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد عليه إلهي سبحانه وتعالى ما ننتهز قيامها أما ننتهى سيدا وحو عذاب وحو عذاب مجرى سيدا وحو حرحران وحو حرحران مجرى يوم كان سوى يوم حول بضل مركا إن لغو تلقله والدومة إلهي سبحانه وتعالى يكون تلقلان أيام مهمة halka xadiis oo ka haray baabkan ku darayna ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala wuxuu khasafat ash-shamsu fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam xiligi nabiga ay qoraxdu madoobaatay faqama fazi'an nabigu waa istaaga soo agagaxsan yakhsha an takuna as-sa'a soo ka baqay qiyaamadi dhacdo hatta ata al-masjid ila masaajidka yimid faqama yusalli واستاجى النبي صلاة وكعي بأطول قيام والركوع والسجود
صلاة قيام كي يقول ديرا قيام على دي قراءة مركز الآخرية تاجنين التانية هي الركوع تي يقول ديرا يسجد تي يقول ديرا ما رأيته ما أرق يفعله في صلاة قط ولقي أسوأ صلاة ساء ديرا ما أرق ثم قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الآيات التي يرسلها الله آيات كان الله يرسله الله سبحانه وتعالى الله أدريه لا تكون لموت أحد ولا لحياته قف لمشهدكم أي بعدان آيات كان ينرش السلطانة ولكن الله أله يرسلها إلى أدريه يخوف بها عباده سواء الضمد سكوا عبس الجرينية فإذا رأيتم منها شيئا هذا وحكا ركتان فافزعوا وأرجح أو مجنجرة إلى ذكر الله إله ذكر كيسة ودعائه دعاء ديسة إيه واستغفاره إله دم داف ويديسة إله إنا دم داف ويديستان هل كان مركب عن قدر يمينا برنامج كان قرح مذوباتك إيه ده مذوباتك قرار رجال بيتك إحنا واقع كرام waxay inoogu fasireen iskana hore maarmayaan inay tahay arrin kimis fiisigis ah oo waxay yiraahdeen dayaxa ayaa wuxuu kala dhex galaya qorraxda iyo dhulka markuu kala dhex galo dhinac baa dhulkii qarsoomaya saasay qorraxda la madoobaanaysaa bay leeyahay walidaalika wax iska caadi ah oo aan cibaado shaqo ku lahayn amal bay dhalinyarada iskuulka dhigataa u qabtaa ama loo fasiraa marka isma diidayaan taasi waa sababka sayniska waana suurtagal ma inkirayno laakiin saasoo ay tahay axaadiista nabiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxay sheegaysaa inay tahay aayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ku cabsi gelinaya bal nabigii baa argagaxay oo masaajidka ku orday oo u maleeyay inay qiyaamaha tahay marka inaga waxaa layna rabaa annagoon cilmiga inkiraynin oo cilmiga saxiixa ah iyo diintu iska hor imaan mayso annagoon inkiraynin haddana inaan ogaano shaygan inay cibaada ka ratimayso ood masaajidka timaado oo salaada tukato ood ilaahay barido ciyaalka yarkaaba bay naga fiicnaa yarka maarta baadiyaha iyo meelaha joogtuulooyinka ilaahay bay tay dab iyo wax wareejiyaan bay ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiistaan maxay ahayd waxyaalaha qaadi jireen waxbay qaadaan yaa ghafaar iyo waxbay dhahaan marka salaada inaad tukatid dad xataa salaada tukanaynin dee ilaahay dambi dhaaf weydiiso adkaar akhri laakiin quraan miyaa madoobaatay waa madoobaan jirtay inaga daayo inaan lama rabo waxaa la rabaa lagu cabsi gelinayaa inaad addoon ilaahay u soo noqoto oo aad isku ilaawin baa la rabaa caawa casharkeena insha allah halkaasaan ku joojinayna wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh